barnaamijkeena dooda jimcaha ee maanta waxaanu ku eegi doonaa dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan. Dagaalka hawada ee u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil waxa uu socdaa maalinka 8aad. Duqeymaha gantaalada iyo waliba diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa sidoo kale iyaguna garaacaya dalkaasi Iiraan. haddaba waxa aanu markaasi eegi doonaa dhinacyo kala duwan ayaan qodobadani ka eegi doonaa dhanka siyaasadda, dhanka militariga iyo weliba si guud saamaynta dagaalkani caalamka iyo bariga dhexe uu ku yeelan doono. barnaamijka waxaa marti nooga cabdulaahi sheekh cabdirasaaq oo isagu ah macallin wax ka dhiga jaamacadda afrika jaamacadda maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyo USIU, iyo weliba professor maxamed xaaji ingiriis oo isagoo ah aqoon-yahan islamarkaana arrimahani wax badan ka qoray. halka maraykanka uu khadka kaga jiro ambasador axmed ciise cawad oo isaguna ah diblomaasi islamarkaana wasiirka hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya soo noqday. dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka dooda jimcaha. waa mahadsantahay. haddii aan ku bilaabo cabdulaahi, ilaa imika waxa dhacay markaad eegtid, maxaad ku qiiman lahayd labada dhinac tan iyo intuu dagaalka bilaabmay? horta labada dhinac haddaad eegtid, qolo walba dhinacay ku xoog badan tahay. Israa'iil waxay ku xoog badan tahay dhanka cirka, oo waxaad u malaysaa inay gebi ahaanba maaragtay ay wiiqeen difaacii dhanka cirka ee Iiraan maalintii ugu horreysaba. marka duqeymo aad u tiro badan oo bartilmaameedyo kala duwan ay leeyihiin. waxaa kaloo Israa'iil ku xoog badan tahay dhanka sirdoonka, oo waxaad moodaa inay gudaha u dhexgaleen Iiraan, ciidamadeedii ay dhexgaleen, xarumaheedii, saldhigyadeedii ay dhexgaleen, oo gantaale iyo drones iyo waxbay ay la dhexgaleen meesha, oo aaday taas ugu xoog badan yihiin. waxaa kaloo jira oo Israa'iiliyiinta ayagana aad u adeegsadeen bilowgii ilaa haatan waxaa loo yaqaanaa cyber attacks, yacni in hanaanka ama sistemyada difaaca iyo maaragtay militariga ee Iiraan inay dhex galeen maalintii ugu horreysaba. marka Iiraan marka waxay ku xoog badan tahay dhanka gantaalada, inkasta oo marka la fiiriya Israa'iil waxa ay ridda 80% miyaan dhihi karnaa way bartilmaamoodkoodii way helayaan. Iiraanna 100% ilaa haatan 80. Israa'iiliyiintu waxay u muuqdaan marka hore 90 ay ahayd, hadda hoos ay usii dhacayaan, 80 ay kasii dhacayaan, laakiin nisbo badan oo ka mid a waxay Iiraan ganta waxaa waaye way iska, maxaa yeelay Israa'iil keligeed maaha difaaca. Maraykanaa kula jiro, Ingiriisaa kula jiro, maraakiibaa kula jirta, diyaaradaha kula jiro. marka Israa'iil maaragtay hal gantaalaa ku dhacaya, halkaasna khasaarihiisa aad ayaa maaragtay diiradda loo saaraya. waa gartay professor maxamed xaaji ingiriis, jawaabtii ay bixisay Iiraan markii weerarka lagu soo qaaday kadib ma ahayd jawaab la filan karay ama ay dadka saadalinayeen? waayo sanadkii hore ayaa waxaa dhacay arrintan oo kale ah. xajmiga iyo culayska khilaafka iyo qalalaasuhu hadda socda uu leeyahay ma lahayn, laakiin sanadkii lasoo dhaafay waatay Iiraan riday gantaaladeeda balastiga oo ay garaacday Tel Aviv iyadoo uga argudaysa dilkii ama shirqoolkii dilka ahaa ee Israa'iil ay ka dhex fulisay magaalada caasimadda Iiraan ee Tehraan, oo ay ku dishay hogaamiyihii Xamaas, taasoo hogaamiyaha Iiraan Ayatullaahi al-Khamenei salaada jimca markuu hadlay sanadkii lasoo dhaafay uu caddeeyey si degdega inay uga bixin doonaan jawaab aargudashaa. waxayna ku qaadatay dhowr maalmood oo kooban inay jawaabtaas bixiyaan. qalqalkii arrintaa ka dhacay Israa'iil oo kaashanaysa dowladda Maraykanka, dowladda Ingiriiska, dowladda Faransiiska iyo dowlado kaloo reer galbeeda, laakiin ay u waaweyn yihiin Maraykanka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska, ayaa hadda waxay dhex galeen security structure-ka Iiraan. waxaa lagu sameeyey waxa afka qalaad lagu yidhahdo infiltration. calooshooda ayaa la galay. capability ama capacity iyo awood ay Israa'iil u leedahay inay Iiraan caloosha securitygeeda gashaa ma jirin. waxay kaashadeen CIA-da, waxay kaashadeen M16 Ingiriiska. waxaa jira sida la wada og yahayba jaraa'idka caalamkuna qorayaan, adduunkuna ka wada warqabaa, jaaliyad xoog leh oo Iiraaniyiin ah ayaa waxay degan tahay wadamada reer galbeedka, khaasatan Maraykanka iyo Ingiriiska. waxayna ka hareen shaahii hore ee Iiraan xukumi jiray 79 ka hor intaan Iiraan kacaankan islaamiga ah uusan ka dhalan. marka gacan xoog leh ayaa jirta oo gudaha lala galay Iiraan. Iiraanna aad moodo inay xaslan weyday inay gacmaha sidii la rabay wax uga qabato, iyadoo hadda ay leeyihin laakiin gobolada dalkan ka qabanay dad badan oo basaasiin ah, laakiin weli security structure-koodii aa lagu dhex jiraa. waa mahadsantahay. aan aado markaana ambasador axmed ciise cawad. ambasador, qaabku caalamka uga jawaabay markii uu dagaalku bilaabmay, maadaama aad diblomaasi hore u ahayd, qaabkay uga jawaabeen diblomaasi ahaan bal ka waran siduu kula ekaa?
qaab fiican ma ahayn. Sababtuna waxa weeye adduunka hadda waxaa ka taliya Maraykanka. Maraykankuna siday soo sheegeen labada professor Maxamed Ingiriisi iyo Professor Cabdullaahi, wuxuu la jiraa Israa'iil ama u taageeraya Israa'iil oo loo yaqaano maaragtay extension of the United States, ama maaragtay wax ka qayb ka ah ama ka tirsan maaragtay manduumada ama nidaamka Maraykanka marka loo fiiriyo xiriirka ka dhexeeya iyo siduu u garab istaago. Marka hadda Iiraan hadda waa lagu gardarooday, waa aad ayaa wax loo yeelay, loo gaarsiiyey. waxaa la qirayaa oo xataa IAEA ama International Atomic Energy qolada loo yaqaano oo ay qirayaan inaan maaragtay aysan lahayn Iiraan hub nuclear ah aysan soo saarin. xataa gabadha Trump u qaabilsan arrimaha amniga ama hay-adaha amniga madaxda ka ah waxay waraysi ay siisay ama hadal ay ka jeedisay Congress-ka, waxay ku sheegtay in aan uusan dhoweyn in Iiraan inay hub nuclear samaysato, aysanna maaganayn, aysanna u socon. iyadoo taas jirto ayaa la weeraray. haddana wax hadda maaragtay condemnation adigu marka ugu badato dalalka westiga, dalalka galbeedka ayaa sida hadda uu sheegay Professor Cabdullaahi ayaa ku shiraya Geneva mardhow oo arrintaa ka hadlaya. laakiin iyaga naftoodu hadal dabacsan bay maaragtay hal la sameeyo de-escalation wax la yidhaahdo, qolaha hal la dhimo iyo hal la yareeyo maahine wax ka hor yimid. sababtuna waxa weeye Maraykanka xataa Ruushka iyo Chinese-ka oo inta badan Security Council-ka xubnaha joogtada ka mida oo inta badan westiga ka hor yimaada, waxba kama ay dhihin. waxaad moodaa in katalinta Maraykanka adduunku ay tahay mid aan la challenge garayn karin, iyaguna Israa'iil bay jiraan. waa mahadsantahay, kusoo laaban doonaa. Cabdullaahi, Israa'iil waxay sheegtay in ujeedada ugu weyn ay ahayd in hubkaasi nuclearka ay samaysanayso sida ay sheegtay Iiraan ay burburiso. laakiin maalmihii ka dambeeyey waxaa soo baxaya in xukunka anaan bedelno ayaan rabnaa inay leeyihiin. marka nuclear arrintu aysan ahayn, ay tahay in la doonayo in nidaamka hadda Iiraan ka jira meesha laga saaro. horta arrintaasaan u fahanno waanaa eegna Iiraan halkay ku taalla. dhankaas waxaa ka jira Bakistan iyo Shiinaha kasii jira, inta jamhuuriyaadkii midowga Soviyeeti iyo Ruushka ka jira, inta wadamada Carabta iyo Khaliijka ka jira, inta maaragtay madiiqa Hormuz iyo biyo mareen muhiim ganacsiga adduunka ka jira, maaragtay inta haddana Ciraaqa kasii jirta. marka waa dal meel oo istiraatiiji ah. markaan ka hadlayna loolanka adduunka ee soo socda ama mustaqbalka, markaan ka hadlayna goob istiraatiiji ku yaala marka Iiraan ugu horeyn. tan labaad, bariga dhexe waxaa ku loolamaya laba quwadood. quwadda Israa'iil, quwadaha Israa'iil ka soo horjeeda waa Iiraan iyo xulafadeeda, iyo quwadaha ka taageersan Israa'iil waxay ka soo hara waaye. marka Israa'iil Xamaas ay u maara la'dahay oo ay la dagaalamaysaa, inkastoo Gaza burburisay oo qaybo ka mid ay qabsatay oo burcad ku sii daysay, haddana Xamaas weli mayna burburinin. waxay aaminsan tahay in Xamaas iyo Xisbullah iyo Xuutigan maaragtay ay Iiraan ay ka dambeeyaan. marka waa halka maaragtay ay Xuusi iyo Xisbullah iyo Xamaas ay la dagaali lahayd, waxay go'aansatay marka inay la dagaasha Iiraan ay toos u abaarta. abaarkaana wuxuu ka soo bilowday markii nidaamkii Suuriya laga adkaaday. dabcan Trump markuu soo galay isbedel ayaa jiray oo geopoliticskii dunida. Maraykankii wuxuu u muuqday in Ukraine uu u dabacsan yahay markaan ka hadlayna Ruushkana uu Maraykanka u dabacsan yahay markaan ka hadlayna Suuriya iyo maaragtay gobolka
bariga dhexe. Marka arrimahaasa marka waxay siiyeen Israa'iil fursadan ah in waqtigani uu yahay waqti munaasab u ah inay maaragtay jilcisa. Iiraan waa wadan cunaqabatayn muddo badan soo haysatay oo dagaal dhaqaalo u badan yahay, dhaqaalo badan meesha ma yeela. Dhanka gantaalada ma ogi xitaa markuu madaxweynaha diyaaradiisa dhacdo waa kii ay u baahdeen Turkida inay caawiyaan. Marka waa wadan aad loo jilciyo cunaqabatayn iyo dhaqaalo darro fara badan ay soo wajahda. Markaan ka reebna gantaaladana awoodooda kale aaday maaragtay ma xoog badna. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis, dagaalka markuu u bilaabmay habeenkii ugu horreeyay Iiraan, generaaladii iyo dad badan oo saynisyahanno ayaa laga laayay. Iiraan maxay kula tahay in sirdoon ahaan ay saa ugu fashilantay oo halka ay ku sugan yihiin madaxdii sarsare la ogaaday isla markaana la duqeeyey? waa mahadsan tahay. waxaa lagu ogaaday muddo dheer ayaa Israa'iil waxa ay raadinaysay inay burburiso quwadaha muslimka ama carabta ah ee ka jira bariga dhexe ee ayada ku ah challenge-ga ee diidan occupationka ay ku hayso Falastiin iyo dhulalka ay ka haysato Golan Heights, Syria iyo meelo kale wadamada carabta ka mid ah wixii ka dambeeyay 67. marka waxa ay ku soo guuleysatay inay burburiso iyadoo Mareykanka isticmaalaysa iyo Ingiriiska ku dar Faransiiska wadanka Ciraaq oo ahaa wadankii duqeyn jiray 91 ayada iyo 90 hadda xasuustaan. gantaalada maanta Iiraan ridiisoo kale ku ridi jiray Tel Aviv una diidanaa inay hurdo oo ay nabad ku hurdo. waa la burburiyey. waxaa kaloo la burburiyey oo laga adkaaday wadanka Syria oo dowladii ka dhisnayd sidaasoo kale ay Israa'iil ayadana u arkaysay challenge. waxaa kaloo ay kusoo guuleysteen ayagoo isticmaalaya qaybi oo xukun divide and rule wadanka Lubnaan. marka wadamadii deriskeeda ahaa waxay mid ay wiiqday iyo mid aan waxba awooda lahayn ayay ka soo saartay. quwadda keliya ee maanta bariga dhexe hortaagan damaca Israa'iil waa Iiraan. waxay kaashadeen marka muddo dheer waxay rabeen inay Mareykanka iskaashiga ay leeyihiin mid ka badan ay sameeyaan, laakiin xukuumadii dimuqraadiga ahaa ee Trump ka horreeyey ayaa gadaal isu dhigayey. way caawinayeen sida dowlad kastoo Mareykan soo martay, maamul kastoo yimaadaba ay balaayiin dollar sanadkii ugu bixiyaan securitygeeda iyo militarigeeda. hubka maanta Israa'iil ay ku dagaalamayso dhan waa hub Mareykanku siiyey iyo qaar Ingiriiska iyo Faransiiska ugu daray sida diyaarado mooyaane 90% hubka haystaan waa hubka Mareykanka. marka Trump ayay kala shaqeeyeen in security structure-kii Iiraan calooshooda la galo. calooshii Iiraan ayaa maanta lagu dhex jiraa. waxaa ceeb Iiraan ku ah in daroonno inta gudaha la soo geliyey gobolada qaar ay gacan ka geysteen habeenkii koowaad in lagu duqeeyo hogaamiyaashii waaweynaa ee militariga iyo sirdoonka lagu laayo. calooshoodii siday ku ogaan waayeen ayaa adduunyada la fashilsantaa. Iiraan marka waxay ahayd say ku ahaataba maadaama quwado waaweyn ay caawinayaan Israa'iil, ayaduna si inay u yeerato China iyo Ruushka ee laga caawiyo yani in laga caawiyo loo sheegay ahayd. aad iyo aad. haddii aan iminkana aado ambassador Axmed Ciise Cawad, markii uu dagaal ka dhacay kadib ama duqeyntii dhacday, laba arrimood ayaa jirtay. mid waa tallaabada military Iiraan ay qaaday, dhanka kalena dhanka diblomaasiyadda ay ahayd oo wasiirka arrimaha dibadda dhowr meel ayay tagay. hadda waxuu ku maqan yahay Yurub. diblomaasi ahaan si ay uga jawaabtay Iiraan arrintani iyo waddada ay qaaday, bal ka waran. diblomaasi ahaan Iiraan hadda iyo ka horba way dayacnayd. Iiraan waxay weli ku jirtaa spirit ama mood maxaa la yidhaahdaa, waxaan loo yaqaano revolutionary fervor. adduunkii way iska kontrolshay. sideedaba inaan ogaanaa dalalka hadda ay Ingiriiska iyo barashada Ingiriisiya tilmaameen Israa'iil ka adkaatay waa dalal iyagu iska adkaaday oo internally u burburay. Iiraan intuu yimid gacaankii yiri islaam baan keenay, dhexdiisu iska haystaa. dadka Iiraan nus ka mid ihi waa ka soo horjeedaan tiradooda hadda ma ogi, laakiin sida la tilmaamo ma aha keliya xukunkii ay riday oo Pahlavi family oo boqortooyadii maaragtay shaaha, laakiin dadkii iyada la dhaliyey maxaa towradda markaanka in badan oo ka mid ah kuwii garabka biixda ahaa, kuwo badan oo ka mid ahaa islaamiyiintoodii ayaa ka go'ay. dhaqan adag oo ayay waddankoodii kusoo rogeen. cunaqabatayn adduunkii bay khilaaf la galeen qaar ka mid ah oo ay ugu badan tahay dalalka deriska la ah
wayagii ciraaq dagaal la galay daadiyey oo 8 sano socday dagaalka qofka raba ha bilaabo dalalka shiica ayay isku dayeen inay faafiyaan oo beri waxay noqdeen sectarian adduunkii sunniga oo iska koobeen marka iiraan saaxiibo badan ma laha dalka gudihiisana kuma laha maxaa la yidhaahdaa dadkoodii waa kala qaybsan yihiin dagaalada xun oo ka dhacay maxaa la muslimiintu isku laayeen sida Syria kalena gacan xun bay ka geysteen ummad badan oo muslimiin ayaan maanta Iiraan u damqanayn Ciraaq sidoo kaleeto Saddam Hussein dadkiisii ayay Syria sidoo kaleeto Syria hadda Israa'iil ma ridin waxa riday niman islaamiyiin oo kasoo horjeeday dadkiisii u laayay marka Iiraan waxay u eg tahay ama ay ahayd intii muddo ah isolated dal waxay ahayd maaragtay la karantiimayo oo la cileeyey taas marka waxaa ka mas-uula diblomaasiyad xumadeeda ayaa ka mas-uula maalan waxaa la sheegay Iiraan inay Israa'iil inay dalalka islaamka ah dalalka islaamka dalalka ugu xooga badan waxaa ka mid ah maxaa la yidhahdaa Turkida haddana Turkida Israa'iil waxay ka qaban karto ma jirto balse hadda maandhaweyto markay damceen inay maaragtay maxaa la yidhahdaa Syria ay dhulkeeda galaan oo ay maaragtay iyagoo og xukunka hadda Syria jira inuusan in their favor ahayn inuusan iyaga ka soo horjeedo oo hadduu sii xoogsado hadhowdii halkaas uga dhalan doonto maaragtay maamul aan kii reer Asad ahayn maamul Golan Heights ku qabsan doona ama laga yaabo inuu Falastiiniinta taageero uu ka dhalan doono waxay dawacday inay sii integrayso inay kasii hortagto laakiin waxaa u diiday oo yiri waa inaydan dalka Syria gelin waxa weeye waa Turkida wayna maqleen marka diblomaasiyad xumo hore ayaa jirta leedahay hadda ahba ayaa jirta dhanka Iiraan aad iyo aad ku soo laaban doona Cabdullaahi haddii dagaalka kale ee Sacuudi asagana wuxuu ahaa dhanka warbaahinta adiguna saxafi ayaa tahay labada dhinac bal ka waran dagaalka warbaahinta iyo qaabka ay adeegsadeen horta dagaalka warbaahintii aan awal garan jirnay ee dhexdhexaadka ahayd ma aha oo waxaa adduunka hadda qabsaday wax loo yaqaan algorithm macnaheedu wuxuu yahay waxa adig warbaahinta adig lagu siinaya ama warka adig kugu soo dhacaya oo Facebook iyo TikTok iyo kaaga soo dhacaya waa waxa adig jeceshahay marka haatan warbaahinta awal dhexdhexaadka ahayd Israa'iilna waxaanay geysatay Iiraan waxaanay geysatay dhays horta meesha way ka baxday BBC oo waliba dadka qaar ay ku eedeynayaan inay dhinac ka yara raran tahay oo madda af Soomaaliga ma haya hatan oo Ingiriiska ayaan u maleynaa inay dhexdhexaadnimo ku soo hartay hase yeeshee haddaad fiirisid hadda Al Jazeera waxa Iiraan Israa'iil ay ka geysanayso oo ay ku tusayso ma jirto waxay diiradda saaraysaa oo keliya waxa Iiraan ay geysanaysa iyo maaragtay waxa halkaasi Israa'iil problem ka dhex jira Iiraan ma taabanayso Iiraan macal gantaalada Iiraan gamaysa maalin kasta markii la fiiriyo 8 maalmood hoose u sii dhacayeen dhowr boqol ay ku bilowday haatanna 10 maraysaa waxay ku leeyihiin waa istiraatiiji marka ay taxliilinayaan moogtahay marka kuwii kaloo reer galbeedkana waa ayagana waxay la jiraan Israa'iil waxayba sawirayaanba in Israa'iil ayada la soo weeraray oo waxa ayada weerarka geystay ee gardaraystay Iiraan ayada inayba ahaynba Israa'iil in la soo weeraray oo dad rayid la duqeeyay oo maaragtay Iiraan ay xadgudub geysatay ayay sawirayaan marka waxa taas keenayana waxay tahay Al Jazeera maadaama ay la hadlayso carabta waxay qaadanaysaa popular view dadweynihii dhankay u badan yihiin si maaragtay dadka daawanaya u sii bataan tan reer galbeedkana waa sidoo kale marka warbaahintii dhexdhexaadka ahayda marka sida ku dhimanay sidoo kalena inta badan hadda wararka baryahan 50% ka badan waxaa lagala socdaa baraha bulshadana waxay raacaan waa personalized algorithm waxaad adig jeceshay ku soo ridayn haddaad Israa'iil nacab tahay wax alla waxay Iiraan wanaagsanay samaysay iyo jabka Israa'iil maanta kulli kugu soo dhacay marka dhibaatadaas ayaa jirta oo dhanka warbaahinta laakiin guud ahaan markaan eegna Israa'iil waxay u muuqataa in meelaha dawladaha muhiimka ah adduunka
in wadamadooda ay maaragtay saameyn ay ku yeelanaysa iiraanna gudaha shacabkeeda iyo maaragtay inay iyadana ay saameyn weyn ay ku yeelanayso oo labada dhinacba ay dhanka warbaahinta ay ka dadaalayaan oo labada dhinacba brobagaan fara badan inay labada dhinacba ay adeegsanayaan. professor ingiriis haddii aan ku weydiiyo isla su-aashaas laakiin ka duwan, labada dowladood Israa'iil iyo Iiraan warbaahin gooni ah oo waddanka ka soo baxda ay leeyihiin, inkastoo Iiraan warbaahinteeda inta badan ay u badan tahay dhanka dowladda uun. Ka waran labada warbaahin ee labada dowladood qaabka ay arrintan uga jawaabeen? horta waxaa muhiim ah inaan hoosta ka xariiqno in warbaahinta Iiraan la damiyey oo Israa'iil duqaymihii ay waday maalmahan maalintii labaad inay duqaysay TV-gii weynaa ee magaalada Tehraan caasimadda Iiraan, shaqaalihii iyo jooga hawshii socota ayagoo live ku jira in la duqeeyey, lana muujiyey sawiradoodii lasoo bandhigay. CNN-tuna shalay ay booqatay oo ay warbixin dheer ka soo diyaariyeen headquarterkii ama xaruntii weyneed oo TV-go dhan dhulka taalla. marka Iiraan dhinaca iclaamkii afkeedii ayaa la dumiyey, marka waxay ka soo dhex hadlayaan warbaahin kale oo dunida carabta iyo muslimka ah sida jaraa'idka iyo TV-yada oo ay ugu horeeyaan Aljazeera. waxaa muhiima oo kale inaan ayadana ogaano in warbaahinta reer galbeedku ay toos ula safan yihiin Israa'iil, qaar ka mid iyo intooda badanba. waxaa ka garan kartaa sida loo bilaabayo labada wadan khilaafkooda ama colaadooda socota halka laga bilaabayo oo ah magacyadooda. haddaa gashid jaraa'idka reer galbeedka oo dhan iyo TV-yadooda waxay ku bilaabayaan Israa'iil, kadib Iiraan ka hadlayaan, halka jaraa'idkii muslimka iyo carabta iyo dunidii oo dhan ay ka bilaabayaan Iiraan, kadib Israa'iil ay ku xijinayaan. BBC-da tan Ingiriiska waxaa moodaa iyadu mowqif dhexdhexaad sida Cabdullahi sheegay inay qaadato ah inay marna Iiraan ku bilaabayso marna Israa'iil ku bilaabayso. haddaad waxay qorayaan Frank Garden iyo raggaas oo dhan eegto akhriso. marka ra'yul caamkii aad lagu kala qaybsamay iyo meediyadiiba labada dhinac la kala safan yahay. marka meeshay ku dhammaan doontana waa maasantahay ambassador Cawad. haddii aan eego qaabka dalalka muslimiinta ay uga falceliyeen weerarka Iiraan lagu qaaday iyo jawaabi ay bixisay, markaad qiimaysay maxaa ku soo baxay? dalalka islaamku hadda soo sheegay waa tabardaran yihiin. adduunka waxaa hegemonka ah, adduunka de waxaa saynu ka warhayno ka taliya dalalka galbeedka. iyagiina awood u dhiganta waxaa yeelan kara matalan China oo kale. Chinana sideedaba arrimaha dibadda oo ma farigeliso oo dalalka. marka dalalka islaamku xooga u haray, codka u haray waa Turki iyo Malaysia iyo meelaha. iyaguna waa dalal quyar socoda oo maaragtay maxaa la yidhaahdaa danaha dalkooda uga horeeyo maxaa la yidhahdaa danaha dalal kale, arkana dayaca ka jira iyo kala qaybsanaanta ka jira dalalka islaamka. sidaa daraaddeed iyo saan haddaayta sheegay Iiraan nafteeda oo colaadisay inta badan dalalka islaamka ah, kuwa dariska la-ah iyo kuwa ka fog intaba. sidaa daraaddeed Iiraan ma haysato cod taageero ah oo dalalka islaamka. dalalka isugu dhow yihiin waxaa ka mid a matalan Cabdullaahi wuxuu sheegay Aljazeera inay tahay matalan TV-ga ama miidiyaha ugu dhow Iiraan waxeeda tabiya. iyadana dalka uu ku yaalo Qatar, baysaska ugu waaweyn bariga Afrika, bariga carabta, dalalka carabta oo oo Maraykanka ayaa ku yaala. oo haddii hadda ay noqoto Iiraan in la garaaco, Maraykanku garaaco, meelaha ay ka duulayaan waxaa ka mid noqon doonta Qatar. marka cod islaam ah oo Iiraan garab taagan oo ma jiro. to the contrary, dalal badan taa mid ka duwan dalal badan oo islaamka ka mid ah oo kuwa khaliijka ay waxay jeclaan lahaayeen in Iiraan khatar bay u arkaan Iiraan khatar ka badan ama xukunkooda ha ahaado ama noloshooda ha ahaado, khatar ka badan tay Israa'iil ka tabanayaan ayay u arkaan Iiraan inay ku hayso. waa mahadsan tahay dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray. weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii dooda jimcaha oon maanta ku eegeyno dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil. barnaamijka waxaa marti nooga Cabdulaahi Cabdisheekh Cabdirasaaq
oo isagoo ah aqoon-yahan islamarkaana jaamacadda maraykanka ee afrika ee nairobi ku taala dhiga professor xaaji maxamed ingiriis oo aqoon-yahana iyo weliba ambasada axmed ciise cawad oo ah diblomaasi islamarkaana wasiirka hore arrimaha dibadda ee soomaaliya mar ahaa cabdulaahi markii aan eegno dagaalka hadda socda haddii uu sidan kusii socdo xaaladda bariga dhexe maxay noqonaysaa horta wakti walba wakti baa ka dambeeyey oona maaragtay dad badanna way degdegeen oo hadda sadaam xuseen iyo dadkii horeo degdeg hadday maanta soo gaari lahayn xaalka way ka duwanaan lahaa iiraan marka inkastooy degdegtay haddana way ka xoog badan tahay dowladihii hore ee maraykanka iyo israa'iil iyo ay burburiyeen laakiin iiraan waa la weeraray sooma ma degdegtay may de ayadana waxay dhehaysa sooma israa'iil aan baabi'inaynaa oo israa'iil meesha kuma taali karto ma og tahay ayadoo ku hadlayso dhehaysa israa'iil aan baabi'inaynaa haddana nuclear ay ku jirtaa ma og tahay marka bakistan oo muslim ahba nuclear way samaysatee nuclearkeedana lama maqlin lamana arkin ilaa uu diyaar ka ahaa marka keeda suuqana u yeelay waana maaragtay israa'iil aan baabi'inaynaana waa garab socday marka israa'iil iiraan laakiin waxay uga duwan tahay kuwii hore xoogaha awooddeeda way ka yar xoog badan tahay oo haddii aad loo jilciyo ayadana waxay weerari kartaa saldhigyada maraykanka ay weerari kartaa madiiqa hurmuskan oo sida baabalmandabka dhankaas kale ka ah oo muhiim ah ayay ayadana xiran kartaa waxaa kaloo ay samayn kartaa ayadana xanuun aad u weyn oo weeraro ah ayay gaarsiin kartaa maaragtay israa'iil culaadaana dabcan shiicadana haddii aad aragtay waa ka yara mayal adag yihiin sunniga markaan ka hadlayna waxay u dagaalamayaan iyo waxay aaminsan yihiin sadaam xuseen markuu weerarayay iiraan wuxuu islaa 600 kun oo ciidan oo daciif waaye hal mar aad ku qabsanaysaa laakiin kuma xisaabtamaynin dad rayada kusoo geli doona markuu meel qabsadaba 100 kun oo rayad oo lugaynaya oo qaar hubaysan yihiina soo galaya marka dad rayad oo lugaynaya oo kusoo gala adiga moogtahay qaabaad hadda isaga celisa way adkaanaysaa marka iiraan in gudaha loo gala oo la adkeeyo inkastoo xaalka isbedel hadda oo dad fara badan oo nidaamka kasoo horjeedana ay gudaha ku jiraan oona keentay inay gudaha loo dhexgala oo caloosheeda la dhexgala ay taas tahay haddana waa ka yara xoog badan tahay dhibaato weynna way geysanaysaa dhibaatadana ciraaqay ku fidaysaa khaliijkay ku fidaysaa shiico far badanaa degan yeman ay saameyn ku leedahay lubnaan ay saameyn ku leedahay maaragtay falastiin ay saameyn ku leedahay marka qalalaasahani haddii uu sii ballaarta waxaa waaye halis weyn ayuu gelin karaa bariga dhexe aad iyo aad professor maxamed xaaji ingiriis dagaalka hadda waa u socdaa dhanka hawada unbuu maraya suuragal ma tahay in la gaaro heer dagaal dhulka ah uu qarxo oo iiraan gudaha loo galo khatar intee laga isaga dhalan karta haddii iiraan gudaha loo galayo cidda u geli karta israa'iil maana waa maraykanka oo magaca israa'iil ku galaya laakiin labada wadan meel iska soo gaaraanba ma laha wax xuduuda oo dhow oo ay leeyihiin male ciraaq iyo jordan iyo syria isaga sokeeya laakiin waxaa muuqata hanjabaad uu ku doonayo in dhiil iiraan ay ogolaato inay samaynta hubka nucleerka ay wado muddo dhowr sanana ay waday inay ku joojiso uu damcay Trump inuu ku handado inuu dagaalka soo galayo xalayna uu qabsaday 2 usbuuc ayaan go'aan ku gaari doonaa labada usbuucna yahay mar walba rhetoric wax walba sees uga dhiga 2 usbuuc laakiin tan muhiimadda ayaa waxay tahay sida ambassador Axmed Ciise Cawad tilmaamay qaabkii diblomaasiyadeed ee Iiraan ay kula loolami jirtay wadamada galbeedka ayaa meesha ka baxay qaab sophisticated ah oo taariikhdooda waafaqsan nimankan waa niman bershiyiina boqortooyooyinka hore ee guunka ahaa ee adduunka jiri jiray islaamka ka hor iyo kadibba ayay ahaayeen marka waxay sameeyeen 25 sano u dambeeyey xaalad iska daba wareejis ah diblomaasiyad shatal ah oo af Soomaali noo noqonaysa ila meerayso ayay geliyeen wadamada galbeedka maalin Vienna lagu shiro Austria meesha quwadda hay'adda quwadda nuclearka adduunku degan tahay maalin ay Paris lagu shiro maalin Brussels lagu shiro maalin Rome la joogo xaalad jahawareer ay geliyeen taasna Israa'iil waxay ka qaaday frustration iyo confusion waxay rabtay sida Iraq in wax loo maamulo oo Mareykanka iyo ayadu iskaashadaan marka hadda de waxa si kale u muuqata inay Trump ka dhaadhiciyeen in la galo laakiin waxa cad oo mudan hoostin laga xariiqo shalay inay Israa'iil ka cabatay 285 milyan oo dollar inay uga baxayso halkii gantaal oo ay isku daydo inay ka qabato Iiraan marka waxay sheegeen hubkii Mareykanku siiyey difaacooda cirka ahaa inuu sii gabagaboobayo
that's why maraykan kusoo dhaqaajiyey maraakiibtiisii chineeska dhinaceeda difaaca uga jirtay iyo jaban aad iyo aad waa mahadsan tahay aad imikana ambasador axmed ciise cawad maraykanka haddii uu soo galo dagaalka maxaa isbedelaya ad is leedahay waxaa isbedelaya iiraan jug weyn baa gaaraysa waa iska muuqataa israa'iil oo yar oo maaragtay 10% dadkeedu uu ka yar yahay dadka maxaa la yidhahdaa iiraan waxaa lagu qiyaasaa inay tahay maxaa la yidhahdaa dadkeedu yahay in ka badan 90 milyan israa'iilla 6 milyan baa la yidhaahdaa dadkeeda weye marka iyagoon xuduud la lahayn dadkeedu 6 milyan yahay ayay sidan u gashay iiraan dad badan oo ka mida marka la fiiriyo bootada say iiraan hanjabaadihii iiraan samayn jirtay waxaa la islahaa waxa maaragtay jug weyn bay israa'iil gaarsiinaysa ha gaarsiiso waxyaabo aysan u baran israa'iil meel kale uga baran ha ka kulanto by the way gaza oo aan shiico ahayn maaragtay israa'iil gudaheedana ku taala ama israa'iil yani ku dhegan ayaa ah ilaa iyo hadda xoogga ugu adag oo israa'iil la dagaalay marka maasha arrinta cabdullaahi baan wax yar kaga duwanahay oo ah shiicada ayaa ka maxaa la yidhahdaa kaysin badan maxaa la yidhahdaa sunnada marka hadda sida muuqata xoogga ugu badan oo frustrate gareeyey oo aad u inkastoo ay wax badan yeeleen u niyad maaragtay u frustrate gareeyey ama u niyad jebiyey israa'iil waa gaza waa falastiiniyiinta laakiin haddii marka israa'iil oo aan xoogeedu intaa la eg yahay aan sheegnay ayaa inkastoo sida ay sheegeen profesoradu ay garab taagan tahay maxaa la yihahdaa maraykanka keliya maahine reer galbeedka kaleeto inkastoo xoogga ugu badan oo garab taagan maraykanka yahay ayaa sidaas aad u jeedid u gelaya iiraan oo awooday inay gudaha u galaan hadda ka hor markii ugu horreysay maaha hadda ka hor ayay culimmadoodii laayeen maaragtay arrimaha nuclearka markii ugu horreysay maaha oo gudaha ku dileen oo aan la qaban kii dilay hadda ka hor bay madax booqanaysa sida ismaaciil haniya siduu sheegay professor ingiriiska ay ku dileen israa'iil waxay ka dhigatay iiraan meel ay banaysatay sidaasna lama filaynin gantaalaha hadda israa'iil ay ku garaacayaan iiraanna ma aha kuwo impact badan yeeshay ma garanaysaa marka laga soo tago xamaasadda aad iyo aad waxaa ku dhacaya iiraan marka haddii maraykanku uu ku biiro oo hub ka xoog badan sida la sheegayo maaragtay yani bunker busting weapons ama bambooyin burburin kara dhulka hoos u geli kara hadday ku garaacaan iyaga oo meel kasta jooga oo uga dhowaan marka hadday noqoto wax badan bay yeeli karaan waa laga yaabaa marka in qalabaase dhasho maxaa la yihahdaa iiraaniyiintu halkan ay wax ku tuuraan halkan wax ku tuuraan sacuudiga iyo ciraaq iyo meelaha laakiin dee xoogag isu dhigma maaha marka wax badan buu ku bedelaa leedahay israa'iil oo inu aragnay intay la egta ayaa waxaa la arkay ku dhintay iiraan haddii maraykan galo waa xoog waa ka badnaan karta dhibaatada iiraan gaartaa waa ka badnaan karta waa mahadsantahay cabdullaahi madaxweynaha maraykanka habeen hore waxa uu yidhi iiraan ha is dhiibto annaga og iiraan in 100,000 oo ciidan ay haysato islamarkaana weli aan la isgaarin muxuu ula jeedaa la soran karaa fariintaas horta Trump waa taqaanaa dee meesha ugu dambeysuu ka bilaabaa waa dhiil iyo waxaasuu ka shaqeeyaa mogtahay marka meesha ugu dambeysuu kaaga bilaaba wuxuu rabaa inuu kuu caga jugleeyo oo aad isdhiibtid
laakiin markaan ka hadlayna dhinaca kale haddaan ka eegnana iiraan optionska ama khayaaraadka ay haysata way kooban yihiin. Dagaal toos ah oo ballaaran oo waasaca dan uguma jirto iiraan. Dhaqaale ahaanna kama bixi karto, awood ahaanna uma babac dhici karto quwadahaas maaragtay isbiirsaday duulaanka ku ah. ruushka iyo shiinahana hadda diyaar umaha ayaga siday israa'iil maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska ay u garab istaagan yihiin maraykanka inay iiraan usoo garab istaagaan haatan diyaar uma aha. marka khiyaarka ugu horeeya leedahay wuxuu yahay un inay maaragtay ay si diblomaasi ah ay meesha ugu baxda oo lafaheeda badbaadsata. maxaa yeelay horta adduunku isbedelayaa, shiinahana kor usoo kacaya, laakiin weli maraykankii ayaa maamulaya. maraykankana xeerkii adduunkan kusoo dhaqayeen wuxuu ahaa un wax xor ah ma jiraan. dee markaan ka hadlayna maraykanka, ingiriiska iyo faransiiska oo ku daba jira iyo maraykanka, wadan walba waxaa waaye un madax oo ayaga maaragtay ka amar qaadata ama ka dambaysaa joogay. wadamada oo madax taaga ah way yar yihiin. taariikhda inta aan soo baranay haatan qarnigii lasoo dhaafayna wadan walba wadanka madax taagay waa lasoo burburiyey. marka fariinta Trump oo kooban waxay tahay ama isdhiiba ama burbura, wax u dhexeeya ma leh. marka fariintiisa ama isdhiiba wadankiina badbaadsada iyo xukunkiina badbaadsada ama burbura waaye. haddii aan eegnana taariikhdii aan soo dhaafnay wadamadii madaxa taagay ciraaq ka soo bilaaw, suuriya kusoo xiji, suuriya qadaafi u kaac, wadamo badan oo muslim ah oo diiday inay nidaamka adduunka u hoggaansamaan. suudaana ugu dambeysay, wadamo badan oo diiday inay nidaamka adduunka u hoggaansamaan way burbureen. ama si ha u burbureena si toos ha loo farageliya ama ayaga dhexdooda maaragtay halaga kala shaqeeya. marka iiraanna wuxuu leeyahay ama wadadii unbaa idin haysa ama waad isdhiibaysaan. professor ingiriis haddii aan usoo leexdo, dalalka uu sheegay cabdulaahi burburka ka dhacay sida ciraaq iyo libiya oo kale iyo wadamada kale, iiraan maxay kaga duwan tahay marka la eego? okay, waa mahadsan tahay. waxaad marka hore iga ogolaataa inaan waxyar ku daro ti aad weydiisay ama uu ka hadlayey, uu falanqeynayey, uu qeexayey, uu sharaxayay ambasador axmed ciise cawad. israa'iil maalmahan oo dhan waxay isku dayeysay inay burburiso meelaha lagu bacrimiyo ama lagu soo saaro hubka nuclearka iiraan. dhammaan khubarada cilmiga iyo aqoonta amniga caalamka waxaa laysku wada raacay ilaa iyo hadda oo isbuuc duqeymuhu socdaan dhinaca iiraan iyo israa'iil labadaba, israa'iil inay waxyeelaysay meelihii hubka nuclearka lagu sameynayay iiraan, laakiin ay ku guulaysan weyday inay burburiso. they damaged but they didn't destroy it. waa wax qeexan oo meel walba lagu qoray kuna taalla. taas waxay beenisay awooddii israa'iil ay sheeganaysay intii ay jirtay oo ah inay tahay quwad weyn oo bariga dhexe ka jirta oo awood u leh inay maalmo gudahood kusoo gabagabayso cid kasta oo kasoo horjeeda. waxay hadda u baahan tahay siday caddaysay inay hesho awoodda iyo kaalinta iyo quwadda maraykanka. maraykanka hadduu dagaalka soo galo wuxuu awood u leeyahay hubka uu haysto wuxuu u saamaxayaa inuu burburin karo halka ay ku kaydsan yihiin bacriminta hubka nuclearka iiraan oo ah dhulka hoostiisa. israa'iil waxay qiratay inay gaari la-adaa dhulka hoostiisa oo ay korka ka duqaynayso. marka waxay maalmahan oo dhan ku soo riixaysa maraykan inuu soo galo. marka waxaan rabaa taa inaan ku laabto hadduu maraykanka soo galo dagaalka, hadduu soo galo biyo macaan kama cabayaan iiraan. iiraan waxay duqayn doontaa oo maraykankuna hadda ka walwalayaa, senatoorada iyo kullina ka sii fakerayaan, walwal badanna ka muujiyeen dhammaan saldhigyada ay ku leeyihin bariga dhexe oo dhan ayay iiraan duqayn doontaa. dagaalkana waxaa la soo geli doona 3 quwadood oo ay gobolka ku leedahay oo ah waxa maanta israa'iil ay u weerarayso ugu weynba oo ah xamaas, xisbullah iyo xoutiyiinta yemen. marka tan ayaan kusoo laabanaa. tan gudaha ah wadan kasta oo muslim ama carab ah oo challenge ku noqda siyaasadda israa'iil iyo maraykanka waxaa la geliyey gacmaha si wadanka loo burburiyo. waxaa laga faa'iidaystay sida ambasador cawad bahdaye tilmaamay internal conflictiga wadan gudihiisa yaalla. saan la wada soconno wadan kasta oo muslima 99% wadamada muslimka calooshooda ayaa internal conflict yaalla. power structureka meesha yaallaa laysku haystaa, hadday boqortooyo tahay, hadday xukun military tahay, xitaa hadday xukun dimuqraadiyadeed tahay. ciraaq taasaa looga faa'iidaystay, syria taasaa looga faa'iidaystay,
libiya taasaa looga faa'iidaystay yemen taasaa looga faa'iidaystay suudaan taasaa looga faa'iidaystay waxaan rabaa inaan qiro oo ummadda soomaaliyeed meelay joogtana ay ogaato iiraan waxay ku jirtay 3 wadan oo muslim ah oo state structurekoodu uu u saxan yahay qaab dhismeedkiisa waa malaysia waa singapore oo qayb ka mida dad muslimiin ku nool yihiin ayagana waxoodii u habaysan yahay iyo meesha la yidhaahdo iiraan qaabkay state structurekooda ku hagaajiyeen wuxuu yahay qaab shuuro ah oo maalinna nin moderate la tartansiinayo maalinna nin macangaga mintada uu soo baxayo qaab dimuqraadiyad ah oo laisku dooranayo marka in la galo waa marka internal gudaheedu waa laga abuuri waaye ilaa 5 sano u dambeysay Israa'iil iyo Mareykan waxay ka wada shaqaynayeen maalin walba in banaanbaxyo la abaabulo hadda shalay kooxihii banaanbaxyada mucaaradka abaabuli jiray Iiraan diidanaa rejiimka meesha jooga kacaamiga ah ayatullahi Khumeyni madaxda ka yahay waxay diideen inay banaanbaxyada marka si sala loo gal karaa dalkii colaad ku jira ilaa baaq u diray Netanyahu uu yiri ka faa'iideysta rejiim janjan sameynayna marka meeshaas Iiraan laga geli way marka gudaha laga soo weerar banaanka looga yimi marka sahlan gudaha loo gal ama sadacwad hadii aan markaas eego in doorka dalalka lagu tiriyo in Iiraan ay gacan saartay leeyihiin sida Ruushka iyo Shiinaha oo kale doorkoodu muxuu noqon karaa haddii dagaalkan uu sii ballaarto oo uu sii fido Mareykankana soo galo hadda sida uu maxaliyada Professor Ingiriisna sheegay ana hore u tilmaamay door ma ay laha Ruushku xoog saa u badan ma aha isaga hadda dhaxar ku jira oo maaragtay Trump ka raadinaya inuu dagaalka maxaliyada Ukraine uu ka joojiyo dal dhaqaale xoogan leh ma aha marka loo eego meeshii joogi jiray Chinaiskuna sidiisaba dad adventure sameeya oo dibadda dagaal u aada ma aha iyaga maaragtay feejignaan uga jira in Mareykanku uu maaragtay ciriiri geliyo marka adduunka xoog ka jira hadda waa kuwa galbeedka oo hogaaminayo Mareykanku waxaan rabaa kaliya inaan sheego waa ku raacsanahay Professor Ingiriis uu sheegay waxaan rabaa inaan tilmaamo Iiraan dadkeedu waa cabursan yahay ma jirto doorashadan ay dadka kala xulanayaan waxaa soo xula guddi la yiraahdo guddiga maaragtay dada dadka waayada maandhow lagu dilayay gabdho iyo wiilal mudaharaadaya jaamacadeed marka Iiraan way kala qaybsan tahay waa runtiisoo markay colaadi jirto way adkaanaysaa in mudaharaado laakiin marbay ku dhawaatay xukuumadda jirta maamulka Iiraan ka jira in la afgembiyo mudaharaadyo daraadood waan ognahay in badan oo kamid inay dibadda ka haystaan Professor Ingiriis wuxuu ku saxsan yahay dalalkan la yiraahdo reer galbeedka dumiyey dumintooda reer galbeedku way sii tuureen dalal hoos ka dumay bay ahaayeen markii horeysa dalalka islaamka ah oo is haysta waxaa ka mid ah sida waddanka Ingiriis maamay Turkida Malaysia Indonesia dalal ka mid ah Afrika ku yaala sida maaragtay Senegal iyo Nigeria iyo kastoo dadka la degan yahay Nigeria oo kaleeto kama cabsi qabaan inay halis xagga uga timaado maxaa yeelay gudaha ayay ka midaysan yihiin oo dadkooda ayaa xorriyad haysta oo ay dalkooda dareemaan inay maaragtay dowladnimadooda iyagu leeyihiin marka dad uu dareemo in aysan dowladooda iyagu iska lahayn dowladooda qolo yar iska leedahay ama lagu caburiyo ama lagu dilo ama xuquuqdooda loo dilayo waxaa u dhib yaraata inaysan kala jeclaysan qofka iyaga xukumo dad isku dadka yihiin iyo qof dibadda uga yimid inaysan kala jeclaysan waxaa laga yaabaa Iiraaniyiin badan inay maanta u sacdinayaan inay Israa'iil garaacayso maaragtay meesha maxaa yeelay dalkoodii bay ama ku xiran yihiin ama ku xaniban yihiin ama ku cadiban yihiin marka dalalka su-aashaadii waxaan soo koobayaa sida hadda muuqata adduunku yahay xoogag Mareykanka ka hor imaan karo waxa iyagu rabaan joojin kara ma jirto waxaan ku darayaa sida uu sheegay Dr. Ingiriis haddii Mareykanku ay galaan Iiraan
waa laga yaabaa iiraan halkeeda iyo halkeeda inay wax ka turturaan laakiin dee xoogag isu dhiganta maaha way canaadi karaan way xafagan karaan way qaniini karaan maaragtay inay halkeeda xoogagii awal ku talageli jireen oo ahaa maxaa la yidhaahdaa marka laga reebo gaza oo weli xamaas dagaalamayso kuwii shiicada ahaa oo joogay maxaa la yidhahdaa waddankan lubnaan oo la dhihi jiray xisbullah waa la neutralize garay marka doorkooda intaan la neutralize garay xisbullah marka intaan doorkooda intuusan ku baabi'in dagaalkii ugu dambeysay Syria wuxuu ku baaba'ay dagaalkay Syria ka galeen oo muslimiinta sunnada ay laayeen meeshaasaa madaxxumadu uga timid iyo inaan qofna u damqan iyo tabardaradooda marka waqtiga aad noo haya marka sidaasaa jahay aad u mahadsan tahay cabdullaahi haddii aan eego inkastoo la burburiyey kooxii ay taageeri jirtay iiraan xisbullah iyo weliba xuutiyiinta weli awood ay leeyihiin doorkooda muxuu noqon karaa iyaga haddii dagaalka uu si xooga noqono horta xuutiyiinta mid waa ku guulaysteenoo badda cas way maaragtay howlay ka qabsadeen inkastoo markii dambena heshiis ay la galeen maraykanka oo israa'iil umaan ku soo harna ay dhahayn dhowr gantaal oo dheereeyana waa ku rideen israa'iil way ku rideen laakiin marka intaa laga reeba awoodooda waxay ka imaanaysay iiraantay awoodooda ka imaanaysay maaragtay siinaysay hubka iyo iiraantii wax siinaysay ayaaba haatan la weeraray oo balaayo haysataa marka dabcan awoodda iiraan hadday yaraatana awoodda xuusiyiintana waa u yaraanaysaa awoodda xisbullahna horeyaaba loo wiiqay xisbullah marka hore waxaa lagu qiyaasayay tirada gantaalada u haysta in israa'iil uu ku burburin karay haatanna isaga gantaaladiisii waa laga burburiyey iiraanna tirada gantaalada iyo hubkii ay ururinaysay keydinaysay waxaa lagu qiyaasayay in israa'iil iska dhaafe gobolka dhan dhibaato weyn uu ka geysan karay laakiin haatan 40% miya waa lasii baabi'inayaa marka sababtana waxay tahay way sugayeenoo ayagaa weerarka looga hormaray israa'iilna marka ugu horey weerarka qaadaba 30% awooddii cirka iyo awooddii gantaalada iyo awooddii wixii oo dhanba wayba wiiqdaba marka xuutiyiinta waxaan isleeyahay garab way galaan oo xabad gantaal rid ama maraakiibta israa'iil maaragtay xoogaho kululey laakiin markaan eegna awoodaha ay la dagaalamayaan iyo waxay ka horjeedaan markaan eegna yacni wax weyn oo maaragtay ay ku soo kordhin karaan malaha wadamada khaliijka ay dhibaato u geysan karaan wadamada khaliijkana haatan waxay u muuqdaan inay iska gaabiyeen dhibaatada ka taagan yemen oo colaadii ay soo yareeyeen waa mahadsantahay professor ingiriis haddii aan ku weydiyo su-aal la xiriirta dagaalka haddii uu sii xoogeysto dhan dhaqaalana dabcan saameyn ayuu ku yeelanayaa waxaa laga digaya maalmihii ugu dambeysay in gacanbiyoodka hormus ay iiraan xirto haddii arrintaasi dhacdo maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara arrin weyn oo aan saameyneyn bariga dhexe iyo asia iyo africa iyo yurub keliya xataa maraykanka saameyn ku yeelan doona waayo waxaa halkaa mara ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka qeyb weyn oo ka mid ah waa marinkay isku dhaafaan saliidda iyo shidaalka tegayay ilaa maraykan waa meesha uu soo maro xiritaanku xiro waxay macnaheedu tahay inay afka qabatay dhaqaale ahaan wadamada ay ishayaan saameyn xoog lay ku yeelan doontaa not only maraykan laakiin wadamadan soo koraya dunida soo koraysa africa ay ka mid tahay iyo latin america xataa qutul darooriga iyo cunadooda iyo wixii ay cuni lahayeena dhibaato ka imaanaysaa marka waa saameyn xoog leh oo iiraaniyiintu la tahay inay si fiican uga fiirsan doonaan oo aysan ku degdegi doonin laakiin haddaan mid yar ku daro tan cabdulaahi waxaa sax ay ku yihiin ambasadorkii cabdulaahiba awooddii xisbullah ayaa ay wiiqeen waayo waxay ka dhex arkayeen iiraan muddo dheer waxay kula dagaalamaysa israa'iil tiruu xisbullah tiruu xamaas iyo xuutiyiintoo gadaal ka yimi marka xisbullah aad iyo aad ayaa structurekoodii loo dhex gala ayagana securityga xamaas sidoo kale waa la infiltrate gareeyey laakiin waxaa weli caloosheeda la geli layahay xuutiyiinta waxaana keenaya dhaqanka dadka yemen yemaniyiinta oo aad iyo aad dhaqan u ah closenit bulsho community xiran oo si qof kale ajnabi ah ama dibadda uga soo dhexgala ay adag tahay ilaa iyo hadda marka infiltration waa lagu samayn layahay laakiin waxaa cad oo aan shaki ku jirin haddii maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiisku ay toos dagaalka usoo galaan isbuucyada soo socda in xuutiyiintuna ay xiri doonto red sea
inay xiri doonto Gulf of Aden, inay xiri doonto galbeedka Indian Ocean iyo qaybo ka mid ah koonfur bari oo ay Soomaaliya soo gelayso, in wax dhaafa iyo wax soo mar inaan la arki doonin ayadana, oo Maraykanku dhaqdhaqaaqa uu halkaa ka samaynayo iyo soo sikashada uu maraakiibtiisa kusoo sikanaya ay dhibaato meesha ka imaan doonto. Marka adduun wada holcaya ayay noqon doontaa haddii Maraykanku dagaalka galo. Ambassador Cawad, haddii aan eego haddii dagaalkan uu dagaal xoogan qarxo Maraykanka uu soo galo iyo xulafadiisa, dalalka khaliijka waxay noqon doontaa goob lagu dagaalamo maadaama ay ku yaalaan saldhigyadii Maraykanka. Soo kuma qasbanaan doonaan in dalalka khaliijka si toosa ay dagaalka faraha ula galaan oo iyaguna dhibaato soo gaarto? waxaan filayaa aniga inaysan dagaalku halkaa gaaraynin. xogaga horta iska soo horjeedaa kuwa isu dhigma ma aha. Iiraan wixii la gaarsiin karay mar horaa la gaarsiiyey, ayadaa laleeyahay cirkii magaalada Tehran waa iska furan yahay oo sidii rabaa loo garaaci karaayo. madaxdooda xataa wayada Cali Khamenei xataa loo dhaaranayo Ayatollah Cali Khamenei laleeyahay xaggee gelaysaa. marka awoodda Maraykanka iyo markaynu caadifada ka soo tagno iyo tan Iiraan iyo isuma dhiganto, laakiin Maraykanka naftiisu qadarinayayo maogtahay dadka wax isku falayo dadkoodu ay talada ku leeyihiin arrimaha. hal qof hadduu ka dhinto xataa iyaga dhib bay ku tahay. dalalkan revolutionariska la yidhaahdo in dalkooda oo dhan la burburiyo, dadkooda la burburiyo, geesinimay ka raadiyaan iyo maogtahay shahaadiyay ku dhahayaan. laakiin ummadahan kaleeto qofka noloshiisa ay qiimeeyaan. marka Maraykanku sida uu Dr. Professor Ingiriis sheegay, in Hormuz xirmo, in dalalka khaliijka danaha uga jira wax gaaraan ma rabaan. marka ma filayo in ay dagaalka ka gaarsiinayaan. dagaalka waxay u maamuli doonaan si ay u contain gareeyaan, si ay Iiraan wax badan u gaarsiiyaan, ku khasbaan inay yeesho maaragtay maxaa la yidhahdaa gorgortan siyaasadeed. wax badanna waa gaarsiiyeen, laakiin way ka ilaalinayaan dagaalku inuu aado. haddii laakiin dagaalku uu xumaado, awood waxay u leeyihiin ah inay Yemen iyo Iiraan iyo intaba ay ku degaan, ma garanaysaa, oo ay markaa sacrifice gareeyaan in dad badan ka dhinto. waxay awooddaa way leeyihiin, laakiin umalaynmayin halkaas uu dagaalku gaaray. aad u mahadsantahay. qaybihii dambe ayaan ku guda jirnaa. Cabdullaahi, ugu dambeyntii halku ku dambeyn doona la tahay markaad eegtay sida hadda wax u socdaan? xalka horta labada dhinacba Israa'iil iyo Iiraanba dagaal oo fool oo ballaaran dan uguma jirto. Israa'iilna haatan yacni in dagaal xoog badan oo iyada ay Iiraan gasho oo ay waday u martaba dan uguma jirto. Iiraanna in dagaal ballaaran la galo oo iyadana la burburiya, iyadana waxay dan uguma jirto. oo waxay ku soo badbaada waxay dhihi jireen sabr istaraatiiji, dulqaad istaraatiijik ah. inkastoo maaragtay ay hadallo naari ah oo maaragtay oo ay sii daynayaan oo marka taas horta waa option oo in maaragtay Iiraan un nuclearka laga jilciyo iyadana ay wax tuurta hadhowna gadaal laga heshiiyo. midda ugu horeysa oo scenario ugu koobaad oo u badan tahay waa midkaas. kan labaadna waa in Maraykanku uu soo galo uu dagaalka ballaarto oo Iiraan ay meelo kala kaas aad uma xoog badna, laakiin waa laga yaabaa. taas hadday dhacdana dhibaato fara badan oo maaragtay ayaa dunida dhan ayaa ka dhici doonta. marka labadaas scenario unbaa meesha yeela, oo scenariogan kaloo ay leeyihiin regime change aan samaynaynaa, yacni maamulkan bedelaynaa, qaabkay u samaynayaan ma sheegayaan. gudaha ayay horta dhex galeen niminkan. marka ma gudahay rejiimka ka bedelayaan, maxaa yeele madaxda Iiraan badigooda way laayeen oo waxaa ka soo haray un madaxweynaha iyo maaragtay hogaamiyaha ruuxiga ah Cali Khamenei. inti kale ee military iyo sirdoon wax alla wixii hogaamin jiray waa la laayay. yacni dilkaasna ma aha dil banaanka ka yimid, waa arrin howl gudaha ka socotay. marka hadday leeyihiin nidaamkan bedelaynaa oo si nabad ah oo gudaha wax ka bedelayaan, waa laga yaabaa iyadana taas waa macquul. adoo waqti kusoo koobaya, xalku muxuu kula muuqdaa? sidee arrinta ku dambeyn doontaa? wallaahi xalku aad iyo aad u adag yahay. Iiraan waa diiday inay wada hadal la furo inta qalalaasuu socdo, sida Trump soo jeediyeyba inay dhiil galaan. wax dhiilo ay qaadanayaan ma jira yidhaahdeen.
ilaa iyo inta israa'iil ay duqaynta wado israa'iiliyiinta dhinacoodana way wadaan laakiin waxaa mudan in hoosta laga xariiqo oo la xuso in wasiiradii arrimaha dibadda ee wadamada jarmalka talyaaniga iyo wadamo kale oo yurub ah oo aad moodo inay dhexdhexaad arrinta ka yihiin inay u yeereen wasiirka arrimaha dibadda iiraan xalayna ay kula hadleen Geneva wada hadalana galeen saaka shirka jira uu qabtana wuxuu sheegay in iiraan cid ay isu dhiibeysanaysan jirin halka daa soo laabanaya inaysan isu dhiibeyn marka xalku aad u adagaya xalku waa in israa'iil oo gardarada bilowday ay duqaynta marka hore joojiso qirto inay ka laabatay duqaymihii iiraan ay ku haysay wixii operation ay fulin karto waa fulisay inay meesha ku joojiso kadib ayaa iiraanna ay joojin doontaa xalku meeshaas keliya ayuu uga dhow yahay haddii aan ambassador axmed ciise cawad adoo aad u soo koobaya hab diblomaasiyadeed ma lagu xallin karaa arrintani taasay ugu dhowdahay sida uu doctor ingiriis sheegay waxaan rajaynayaa shirka ay maaragtay wasiirada arrimaha dibadda yurub ay kula yeelanayaan iiraan iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ingiriisku hadda uu ka tegey maxaa yihahdaa maraykanka oo iyagana kala tashanayey in ay arrinta diblomaasiyaed ku dhammaan doonto ayaan anigu rajaynayaa sinaariyooyinka jira waa iyadii uu cabdullaahi tilmaamay si fiican u tilmaamay marka dee waxaa jira percentage ah in colaadu sii socoto waxaa jira percentage in maraykanku galo waxaa jira kale percentage ah in uu qarxo maaragtay bariga carab bariga dhexe laakiin iiraan hadda ma joogto wakti ay maaragtay meeshii awal joogtay ma joogto marka diblomaasiyad haddii dariiq loo baneeyo ayaa lagu xallin karaa